akasahay bardhadaanaytu weyn ma arkino bilaasha iskama qasaarnaysid cadkoo yara hilibka ugu reebaysa saasa ku beernaysaa because waxaa hadda soo baxaya ujeediin ma arkino it's on the skin maqas iyo shaqo iyo wax u baahan caleemaha dhan way sokorta sukumada dhan waxay ku fiican tahay caleenta hadda sida iskaga weyn ma arkino meeshaan ay ka laabmanayso leesan ugu jibine qaraabo waa salaamantihiin maanta shaqo waxaan sameynayaa oo la dhaho putting the garden to bed meaning horta roobka soo bilaawdo qabowgi si fiican noogu soo dhaca hal maalin baraf noo daay anako filaynin I got traumatized so and hadeertan composting beerta ku daboolaya insha Allah meeshaanaytan shaqada wili ka socoto misdeheen barafa soo daay hay qaraabo u jeedinay meeshaan barafkii aad dhuumasho ku jirno reer Minnesota saacadaanayta barafa noo tuurnaan lahaa jaakad iyo boots waaweyn xirnaan lahayn laakiin waa u jeedinay meeshaan so laba maalin ka bacdi maasha Allah qorraxa soo baxday magaalada qandac ee noqotay i jeedin dirciga baatiga aan ka shaqeysanayo barkoonkan insha Allah barafka markuu dhamaado waxaan jeclahay meeshii aan sanadka cusub wax ku beer lahaa inay diyaar ay tahay so that's why hadartaan aan meeshaanayt wax igu beerna clean up gareynaya ubaxyaashi oo sanadkan ku baxayna ka bixinaya dhulka xaqanayna inta qorraxda noo jirto carpet yara meesha dhiganayna sidaan ma arkino ku nasano badana anoo ma arkino huursan oo biyo raadinaya meeshaan wasaqda la ujeedin isku tuura aan jifta laakiin waxaan isdhahay marka shaqada galabta soo dhameystay insha Allah meeshaan aan rabana isku tuuro qaraabo waqtiyada October November markii la gaaro badana waa muhiim especially Minnesota meesha ani ka deganahay qabowgi iyo barafka markuu bilaawdo waxaan xafishkaanay hadartana u jeedindan ina clean up gareey waaye because qabowgi markuu bilaawdo barafkii uu da'o carradaanayta way qalali doontaa dhagaxay noqon doontaa baraf ay noqonaysaa so markii la rabo insha Allah waan tusi doonaa April markii la gaaro oo barafka uu dhalaalo hadii oo shaqada hadda qabanayo aan qabanin ee beerta aan ku beesha ku beer lahaa diyaar ay ahaan insha Allah waxyaalo badan oo aan gafi doona oo aan mirihii meesha ku bilaabi lahay qudaar cusub iyo salarkii meesha ku bilaabi lahaa diyaar ima noqonayaan so markii aan dhahayo putting the garden to bed waxa ka wada clean up marka sameeyo waan nafaqeynaya carra cusub oo ku shubaya meeshaan ka bacdi farta muuqaaday meeshaan ilaa next year insha Allah wax kuma beeri dooni okay qaraabo halkan aan ma arkino kabashka meesha ka soo googooyay caleemihii baalaha ka soo yar googooyay kuwa zaid dhulka ugu dhawaay so meeshan qashinka waxaan ku ridi lahaa waxaan jeclahay inaan sameeyo kuwan caleemihii ka soo yar googooynaya dhaqsaan sameyn lahaa laakiin gacanta kala kaamirada ku haya so halkan u jeedin xataa anoo googoonin asnaan ugu ridi karaa waxa soo laaban doona insha Allah aan tusi doona markii la gaaro markay April ay tahay markuu barafka naga dhamaado oo banaanka xir laga shaqeyn karo mise May markay noo tahay meeshaan yar qodaya insha Allah aan tusaya hadii wixii ka soo haray qos waqti yar ay qaadanaysa inay bololaan nafaqo u noqonaysa carrada markaas insha Allah soo waxaan hada u jeedin dhan meesha ka aruuriyay caleemihii yar waaweyn sidaan ka dhigi carradaan hadartaan ahayaan ku daboolaan markaas
حاجر ديارتها ماشان كسocdo maanta okay taas ay goolayaan cagaarkan u jeedina waxa waaye wasukumadii bahal yar yar maalmahan cunaayay laakiin waa ogtihiin in a different video marwaan inta soo umaleena caleenta aad ka helin saan u jibinaysaa tan camalada iska yar bolashe bahal cunaa jiraan kuwaasaytan anina meesha sun ah ku shushubi lahay caleenta la saan ugu soo jibinayaabo kuwan yar cusub hadartan u jeedin ayagana waa lagu bilaabay bismillaah laakiin marka ay caleemahan baxbaxayaan dhaxda ka soo baxayaan caleemaha shisho oo waaweyn bas la gurtaa marka so kana camal hadda maqas iyo shaqo iyo wax u baahan caleemaha dhan way sokorta sukumada dhan waxay ku fiican tahay caleenta hadda sida iskaga weyn ma arkino meeshaan ay ka laabmanayso leesan oo jibine dhac saasa ku soo bixi ma sha Allah bal ma saxin soo qaad kuwan ma arkino oo eg rafaad inay haayaan ma arkino kuwaas ma gurti hoostaana niga tusaaya insha Allah ta hadda aad haay ma jeedido ma nuurayso wala taga dhac afsiinaya taas ka mehelin meesha aan qashinka ku ridi lahaa ayagana ma arkino goda u qodi karaa meeshaas ay igu taalo kabashka meesha hadda wax ku beerayo meeshaas ay ahayd caleemihiisi haddii kaleeto koombo oo ma arkana mise caago oo duleelo ku ridaya mise waxaaba jeclahayba toos inaa god yar meeshaan ka qodo inaa carrada dhex geliya ku daboolo kana maasha Allah caleen weyn uu leeyahay fresh from the garden صارادي نعسنمدي ماشي مسيدي يارسنين سك waa u jeedina caleemahaneete waxyaalo badan oo waxay leeyihiin oo damage leh mise bahal yar soo cuncuneen qabowgi markii la soo gaalgaray waxaan stop gareeyay in aan buufiyo so maxal ha that's why you see ma arkino caleemahan hadarta aan soo gurtay inay waxyaalo la soo cuncun inay u egyihiin badana markii lagu jiro bilihii oo May June July August ila all the way waan jeclahay in aan buufiyo but as much as possible shabaqyaalna waa ku daboolaa sida aan uga ilaaliyo waxyaalaha ma arkino oo xayawaanada yaryar kale oo cuni karaan so qudaartan hadeertan aan gooy dhan waxa waaye mid oo aan hadeertan flinjer gelin doono mise freezer kan gelin doono insha Allah sida hadeertan u jeedin si fiican aan u dhaqi doona bacdiya bi karkaraayo aan maybe 2 to 3 minutes ku karnaaya karkariskaaseetan igama oho in aan caleemahan inaan kariyo waxaa la rabaa in aan caleentaneta size-keeda inay yaraato because waxaa diidaya flinjerka caleemahan ayagoo karsaneen haddii oo flinjerka normally caadi u geliyo waxaa ka cabsanaya haddii familkayga diyaar u ahaan inay bololaan oo qashinka lagu rido waa waxa dhabarkii ugu soo jabay anoo sida u beernay so all the vegetables oo guriga oo beerteeda ka soo baxo haddii aan sameyn karo waxaan jeclahay in aan dhaqo aan jarjaro bacdi freezerka aan geliyo waan inta doona sidaan u isticmaalaa insha Allah
qaraabo meeshaan hal isbuuca kasoo wareegatay cagaarkii hadeertaan aan dhaqaayay aan karkarinaayay bacdaaneed oo ziplock igu jireen hadda waa ujeediin meeshaan feerfeerooyo waxaan kala burburinayaa sida aan kastoo yar aan ka karsano maanta yaa xasuusta cagaarkan wax ka halaabay ma leh everything fresh waaye so kana airka ka bixinaya weli wax badan inta ku jiro and then ziplock la xiraysan qaraabo bardhadan waa beeran karaa laakiin waqti aan ku beer ma haayo fiicnaan lahayd inaan beera kan ma beeri kari soo qaraabo bardhadan ujeedina this is waxa hadda abeeran karno this is crazy wallahi so waxaa rab inaan fiiriyo sida how deep ma arkino geedaha hadda soo baxayo bardhada skinkeeda miya mise hilibkii bardhada ku dhex jira wax ku dhex jirina mal wallahi isn't it beautiful it's amazing wallahi akasahay bardhadan inta weyn ma arkino bilaash la iska maqsaarinaysid cadkoo yara hilibka ugu reebaysaa saasa ku beeranaysaa because waxaa hadda soo baxaya ujeediin ma arkino it's on the skin ilaahi amarkiis bardho kalaasaan ka soo baxaysaa markaas okay meeshaan experiment la sameynayaa waxaan fiirin rabaa in ay bardhadaane ujeediin bardhadan qolofkeeda waxaa rabaa inaan wax ka beero at least hadeertan barafka igu soo socda waxay noqonaysaa in guri gudihiis aan ku beero but can you believe this waxaan hadda ujeediin oo bahalka u malaysid xididda ma laho bardhada sidaan ay ugu hoos jirtaa so waxaan tijaabinayaa inta aan carro aan gelinin waxaan fiirinayaa haddii oo aan hoosta salka u qooyo because waxaan ii sheegay markaa bardhada aad beeraysid markay saan igu soo baxdo cad hilibkii bardhada u reebaysin so taas oo qoyan ay wax nafaqo ka helayaan miya ma ogi so I want to experiment haddii oo qolofkii bardhadii aan fiiqay intaan ay kasoo hartay haddii oo aan salka soo qoyaan uga dhigo okay bacdi greenhouse-ka si fiican u xiray si fiican hoos ugu laalaabay and then waxaan fiirin doonaa insha allah geedkaaneet inuu kor usoo bixi doono so ubaxaan la carradiisa kor saaray